dowladda Soomaaliland iyo dowladda Imaaraadka Carabta ayaa heshiis military ku kala saxeexday magaalada Abu Dhabi ee wadanka Imaaraadka Carabta. heshiiskan dhexmaray labada dowladood ayaa dhinaca Soomaaliland waxa uu saxeexay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo u goobjoog ka ah madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland halka dowladda Imaaraadkana uu u saxeexay Maxamed Al Zuwaydi. heshiiskan ayaa dhigaya in saldhig military laga siiyo wadanka Soomaaliland dalka Imaaraadka Carabta gaar ahaan magaalada Berbera. heshiiskaas oo la sheegay in uu yahay mid aad u ballaaran isla markaana ay labada dhinac iska kaashanayaan dhinaca ammaanka dhinaca dhaqaalaha. heshiiska military ee dhexmaray dalalka Soomaaliland iyo wadanka isu taga Imaaraadka Carabta ayaa waxa faahfaahin ka bixiyay wafdiga Soomaaliland oo ugu horeeyo madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland uu war-saxaafadeedka uu kaga hadlay qodobada labada dhinac ay ku heshiiyeen waxaana kamid ahaa ereyadiisa sidan: maanta oo xada oo taariikhdu tahay 19 bisha March 2017 waxa heshiis ku kala saxeexday magaalada Abu Dhabi dowladda isu taga Imaaraadka Carabta iyo dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland. heshiiskaas oo koobaya iskaashi dhinacyada amniga, dhaqaalaha, siyaasadda iyo arrimaha dibadda, kaas oo ku salaysan go'aankii baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo baxay 12 bisha February 2017. heshiisku wuxuu ka kooban yahay qodobadan: 1. dowladda Soomaaliland oo ogolaansho siisay in ciidamada dowladda isu taga Imaaraadka Carabtu isticmaalaan madaarka diyaaradaha ee Berbera. 2. dowladda isu taga Imaaraadka Carabta oo ka dhisi doonta madaar cusub oo ku yaala magaalada Berbera oo ay isticmaali doonaan diyaaradaha rakaabka iyo kuwa xamuulka, taasoo micnaheedu yahay inay Berberi yeelan doonto 2 madaar. jidka isku xidha magaalooyinka Berbera iyo Togwajaale oo dhererkiisu yahay 250 kilomitir ayaa isna ka mid ah mashaariicda la fulin doono. mashaariic kale oo la fulin doonayana waxay la xidhiidhaan biyaha, tamarta, caafimaadka iyo waxbarashada. mashaariicdaas waxaa la fulin doonaa 3 sannadood ee soo socda. 3. dowladda isu taga Imaaraadka Carabta oo suuqyadeeda shaqo u furi doonta muwaadiniinta reer Soomaaliland. 4. dowladda isu taga Imaaraadka Carabta oo taageeri doonta shirkadaha maalgashiga ee Imaaraadka inay maalgashadaan Soomaaliland. 5. dowladda isu taga Imaaraadka Carabta iyo dowladda Soomaaliland oo iska kaashan doona dhinaca ammaanka. wuxuu heshiiskani albaabo cusub u furi doonaa Soomaaliland iyo beesha caalamka. ugu dambeyn, waxa kale oo labada dhinac isla garteen in dowladda isu taga Imaaraadka Carabtu gargaar degdega gaarsiiso dadka ku tabaaloobay abaaraha. madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa war-saxaafadeedkan isaguna waxa uu ka hadlay heshiiskani faa'iidada uu u leeyahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici oo ka hadlaya arrinkaasina waxa uu yiri:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم runtii maanta waa maalin weyn waxaan oranaa maalin aad u qiimo weyn oo qiimo gaar u yeelan doonta taariikhda Somaliland waxa uu heshiiskani faa'iido u yeelanayaa Somaliland iyadoo ay noqonayso heshiisyadii koowaad ee caalamiga ee dunida horumartay ama dunida ictiraafsan yahay Somaliland la gasho waxa weeyaan dabcan saldhigyadu qiimaha leeyihiin waa la garan karayaa saldhig military ayanu siinay maartay dowladda imaaraadka iyagoo nagu bedelay iyaguna mashaariic horumarineed oo ah mashaariicdii dowladda Somaliland u saaciyay baarlamaanka Somaliland marka faa'iido ay ka helayna waxa weeyaan mashaariic horumarinta ayaa kamid ah oo u weyntahay ummadda reer Somaliland ay ka dheregsan tahay muddo 20 sano u dambeysay maalinta Somaliland maamulkeeda cagaar loo taagay 39 ilaa maanta waa 30 sanadood waxaan marba dhagtooda ka badanaysay mashruuca la oran jiray Berbera Corridor oo ah wadada dheer ee halbowlaha ganacsiga ah ee Berbera ilaa iyo Wajaale iyo ka koowa mashaariic ay fulisay ay maartay faa'iidooyinka ka soo galay Somaliland ka koowa iyadoo madaar labaad heli doonta insha Allah iyadoo maartay ay xagga amniga iska kaashanayno maartay Somaliland iyo maartay dowladda imaaraadka marka faa'iidooyinka runtii aad iyo aad u faa'iido yihiin waxaan ugu bishaarinaa ummadda reer Somaliland waa inuu imaaraadka oo taariikh dheer iyo xiriir dheer oo soo jireen abayaashani aw yeesheen lahayn in maanta xiriirkaas si adkaan doono oo maartay mid siyaasiya iyo mid dhaqaale faa'iido badan u soo gelin doono reer Somaliland heshiiskan military ee dhexmaray dalalka Somaliland iyo wadanka Imaaraadka Carabta oo telefishinka qaranka Somaliland oo qayb kamid ah uu helay ayaa waxa ku jira qodobo muhiim ah oo kamid ah in dalka Somaliland iyo dalka Imaaraadka Carabta ay iska kaashanayaan in la difaaco xuduudaha dhinaca badda dhinaca cirka iyo dhulka ee Jamhuuriyadda Somaliland hadii ay markaa ay ku timaado weerar gardarro ah oo ku yimaada qarannimada dalka Jamhuuriyadda Somaliland